daawadayaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkii af Soomaaliga aad TV-ga Universal aad uga barateen barnaamijka caawa waxaan kusoo qaadan doonaa naxwa Soomaali ama naxwaha af Soomaaliga iyo todobadii ayaan guud ahaan dul maray erebixinta barnaamij ku saabsanaa naxwaha af Soomaaliga ah caawa mataqaanaa waxaan kusoo qaadanayaa insha Allah ilaahay digiisa naxwihii oo aan guud ahaan qodob u soo qaadan doono laakiin waxaan horta marka hore naxwa Soomaali markaan leeyahay ama Somali grammar ama naxwa Soomaaliya marka waa barasho ku saabsan afkaaga hooyo qaabka u dhisan yahay xeerarkiisa xagga naxwaha marka waxa loo baahan yahay marka intii taqaanina waa taqiinay intaan ka warqabino Soomaalida bal inay guud ahaan television-ka ay kala socdaan marka barnaamijkan waxa isku soo dabaruday barnaamijkan waxa sponsor garaysay shirkadda Xawaala Express shirkadda Amana Express Limited ama LTD shirkadda Amana Express ayaa u fududeysay suurtagelisay barnaamijkan aqoonta ku saabsan ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan television-kan Universal inay la socdaan afkooda inuu leeyahay qaab dhismeed guud ahaan marka adduunka waxaan ka warqabnaa ugu yaraan waxaa ka jira 5228 afad baa looga hadlaa Soomaaliga kuwa buu ka mid yahay marka afafkaas oo idilna waxay leeyihiin markii la darsay kadib qaab dhismeed bay leeyihiin naxweed waxaa la darsay qaabkay u shaqeeyaan qaabka mataqaanaa marka laga eego xagga magaca marka laga eego xagga ma aragtay falalka qodobada sifooyinka magacyaalada jumlooyinka kala duwan iyo wixii la mid marka naxwa Soomaali markaan leenahay adinka iskale afkiina weeyaan marka de barnaamijkan waa barnaamijkii af Soomaaliga weeyaan maarto alif la kordhabay alif la hoos dhabay aad ku taqiinaan waa alif la kordhabay alif hoos dhabay waa meesha afka ka bilowday marka insha Allah ilaahay dikiis tartiib baan u soo qaadan doonaa qodob aynu u darsi doonaa marka naxwa Soomaali markaan leenahay ama naxwaha af Soomaaligana waad oran kartaa oo waad qodob baad geli kartaa naxwaha af Soomaaliga naxwa Soomaalina waad oran kartaa marka maxaa baran doonaa xeerarka afka aan ku hadalno oo samaysan yihiin baan baran doonaa insha Allah kala duwan waxa kamid ah marka xeerarkaasi magac guud iyo mid gaar ayaan soo qaadan doonaa waxaan soo qaadan doonaa ay sheegay magac kaliya iyo wadar ayaan soo qaadan doonaa magac lamaana ayaan arki doonaa magac iyo badan marka la isku daro wadareed baa la yiraahdaa waxa jira marka magacyo Soomaaliga aan qaabka wadarta sida kuwa kale u qaataan aan u qaadan oo ilaa badan aad ku darta maahane waan arki doonaa marka waxaan arki doonaa qodobada baartay ay kala baxaan howlgalkooda isticmaalkooda lab iyo dhidig sidii kala yihiin waxaan arki doonaa fal baynu asigana aan soo qaadan doonaa aan arki doonaa fal marka falka waa al-ficil waa ama waa action
ama waa verb adiga marka falka marka waxaan arki doonaa fal lahaansho waxaan arki doonaa fal ahaansho iyo fal lahaansho baa la kala yidhaha waa verb to be iyo verb to have inta kale verb essere iyo verb avere waxaan soo qaadan doonaa marka falma gudbe waxa la yidhaahdo oo ah fal gudbe waxa la yidhaahdo oo ah transitive verb يعني verbo transitivo in italiano waxaan soo qaadan doonaa falma gudbi isagana aan arki doonaa insha allah barnaamijyadeena oo ah falma gudbaha waa intransitive weeyaan marka waxaan soo qaadan doonaa isrogroga falalka baynu arki doonaa waxaanu arki doonaa insha allah waqtiyada ay falalka dhacayaan waa tenses ama tempi baa la yidhaah oo ah maanta berita waxyaalaha marka ficilka la sameynaya waqtiga uu dhacaya isna aan soo qaadan doonaa waxaan arki doonaa isrogroga falalka waqtiyada falka dhacayaan meelayaal waxa la yidhaahdo meelayaalka waxa waye prepositionska weeyaan ama prepositioni waxa la yidhaahdo marka insha allah ilaadikiisa waxaan caawa ku bilaabaynaa marka magac baynu soo qaadanaynaa marka ugu horeyso marka magac markaa leedahay hingaada xataa qudhaada waa ku baranaysaa marka leedahay marka magaca waa maxay marka muxuu taraa magac marka lagu yahay what is noun marka lagu yiraahdo waxa laga yaabaa inaad jeceshood la soo boodayso the noun describes indicates people person humans marka magac markaan leenahay annagana waa qeexayna ila waa afkeena weeye inaan barano oon yani ka faa'iidaysano weeyaan marka magac waxa uu taraa in loogu yeero dad duunya iyo wixii la mid ah ayuu magac taraa marka magaca marka markii annaga aan ma ga aan niri dadna waxay yidhahdeen noun ay yidhahdeen ama nome ay yidhaahdeen marka al-isma luqata alcarabiya marka waa la darsay qolo walba afkeedii bay darastay afkeedii baa marka dadkoodii ugu sheegayaan waxa uu noun yahay buug badan oo english grammar ama naxwa haddaa aragtaan iyo al-isma huwa the noun is waxyaabahaasay leeyihin annagana marka sidoo kale leenahay magaca waxa uu taraa in lagu yeero dad iyo duunya iyo wixii la mid ah marka lagu yeero marka waa marka waxaa leenahay marka magaca mid gaara iyo mid guud baa jira marka magac gaar iyo magaca guud baa jira marka magaca gaarka waxaa la siiyaa dadka meelaha caanka oo waaweyn oo mataqaanaa buuraha magaalo madaxyada aa la siiyaa marka loogu yeero marka magaca gaarka dadka la siiyaa buuraha la siiyaa magaalo madaxa la siiyaa magaca guudna waxaa la siiyaa duunyada xoolaha ashyaada iyo wixii la mida marka waxaa leenahay magacii wuxuu u kala baxaa yani guud iyo gaar buu u kala baxaa marka magac guud iyo gaar marka haddii lagu yidhaha marka magac guud waxaad u taqaanaa marka nome comune in italiano haddii common noun in english language marka waxaa la siiyaa wixii xoolaha duunya guudkii waxaa la siiyaa marka waxaa la siiyaa magaca guud xoolaha